السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش qiimaha badan maalin wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkan kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii koonfur Hindi maxaa ka cusub sida caadiga waxaan ku bilaabanaa filimka weyn ee Jad oo weli tiyaatarada saaxiibayaal iyo ganacsi uu sameeyanayo maalmaha shaqada markii la guda galay talaadadii iyo xujadii hortaalno ka gudbay sababta Jad wuxuu soo xareeyay 5 karoor bar sida shabakada box office Hindi shaaca ka qaadeen shabakadaha kalena waxay 6 karoor soo xareeyay darteed marka talaadadii koowaad filimkan waa ka dabaashay caqabadii aad ama hoos u dhac weyn sameeya maadaama uu yahay filim dadka single screens ama muruqmaalka dabaqada hoose dabaqada dhexe ku xiran ee garab taagan yihiin sidoo kale tan shabakada box office Hindi waxay shalay oo talaada filimkan waxa caawisa shaleemooyinka waaweyn ee multiplexka sida BVR NX iyo Symbols qaarkood in qiimaha tigidhka hoos loo dhigay laakiin kulli shaleemooyinka qiimaha tigidh hoos lama dhigin laakiin meelaha qaarkood 99 rubi la iibina taasna factor kale oo caawiyo haddaba sanad wal filimkiisa wuxuu maraa ganacsigiisa haatan muddo 6 maalmood shan maalmood aan dhahay 6 maalmood waa konton iyo 2 karoor sida shaaca ka qaaday shabakada box office Hindi shabakadan waxay leen saaxiibayaal filimka lagu magacaabo Jad waa filim guuleystay laakiin si uu hid dhameystiran u noqdo waa in toddobaadka labaad uu sii gadmaa toddobaadka afraad markuu gaaro 100 karoor ayuu hid dhameystiran noqon doonaa marka box office Hindi iyo maqaal ka soo daabacayna soo qaadana filimka Jad waxay dhaheen Jad si fiican u dabcan isku celish ama collection fiican u sameeyay wuxuuna ka faa'iideystay qiimaha tigidhka hoos loo dhigay meesha lagu magacaabo BVR NX laakiin Symbols kuma jirin sidoo kale guud ahaan Hindi oo idil qiimaha tigidhka hoos lama dhigin 5 karoor bar ayuu kana filimkan sadarteed waxay dhaheen box office Hindi hadda waxay ka dhigantahay 52 karoor iyo mar 6 maalmood maanta oo arbaca haduu is celiyo waxay ka dhigantahay khamiis waa maalin kale toddobaadka ugu dambeeya jimcadan waxaa jirta fasax Good Friday filimka Kesariya inkastoo tiyaatarada badan ka qaadan doona Akshay Kumar hogaamiye ka yahay haddana shabakada box office Hindi waxay leeyihiin mashruucan sidoo ku socdo waa si heer sare sababta talaadi isniin labada uu isceliyo inkastoo isniintii fasax uu jiro hadda waxay leeyihiin shabakada box office Hindi filimkan ilaa hadda ganacsi uu sameeyo waa ganacsi ku filan inuu noqdo mashruuc guuleystay laakiin soo u noqdo xidhan film hit dhameystiran waa inuu si gadmaa laba toddobaad soo socoto meelaha ku fiican yahay waxaa kamid ah Rajasthan iyo Haryana iyo UP iyo Delhi si weyn ayuu kaga gadmaa sida hadda muuqato dhinaca kalena box office Hindi waxay leeyihiin filimka Jad markuu dhameysto toddobaadkiisa koowaad waxay u badan tahay inuu gaari doono 55 karoor ilaa 60 karoor first week inuu soo xareen doono sida shabakada box office Hindi shaaca ka qaadeen aan soo qaadano qabiirka caanka Taran Adrash oo asigana ganacsiga aflaanta ka faalooday wuxuu leeyahay Jad wuxuu keenay 6 karoor maalinkiisii lixaad ama day 6 oo talaada ah box office Hindi 5 karoor bar Taran Adrash wuxuu leeyahay 6 karoor waa la iska agdhow yahay farq weyn uma dhaxeeyo sidoo kale Taran Adrash wuxuu leeyahay filimka Jad wuxuu maraa ganacsigiisa 53 karoor halka box office Hindi ay dhahan 52 karoor farqi 1 karoor kaliya u dhaxeeyo waa filimka kaliya reportingkiisa xitaa organic uu yahay ganacsigiisa organic uu yahay ka badbadis iyo bacrimin ma jirto saaxiibayaal Taran Adrash wuxuu leeyahay tijaabadii talaada hortaala filimkan ku gudbe toddobaadka labaad wuxuu leeyahay tiyaatar ku filan heli doona si uu single screen kaga sii gadmo shabakada caanka Sonic dhankooda markii aan fiirno ayagana waxay dhaheen 6 karoor ayuu soo xareeyay day 6 maalinkiisa lixaad filimka lagu magacaabo Jad taasoo ay ka dhigantay dhammaan shabakadaha ilaa isku mid ka yihiin dhanka reportingka sanadol filimkiisa oo aysan jirin wax la dhaho corporate iyo balaayadaas ma jirto sida hadda muuqato haddana Sonic waxay dhaheen filimkan wuxuu maraa saaxiibayaal 53 karoor sida shaaca ka qaadeen dhinaca kale tan waxay leeyihiin filimka lagu magacaabo Jad wuxuu toddobaadkiisa koowaad keeni doonaa ay ka dhawaajeen 60 karoor ayuu gaari doonaa si la mid ah shabakada caanka Sonic waxay leeyihiin filimka Jad ganacsigiisa guud World War Gross wuxuu marayaa lacag gaarayso 71 karoor dibad iyo dal markii la isugu daro sababta gudaha Hindi wuxuu ka soo xareeyay 53 karoor bar lacagta nadiifka sida Sonic ay soo daabaceen Gross money waxay u dhigmataa 63 karoor suuqada caalamka 8 karoor ka keenay 6 maalmood World War Gross markuu wuxuu maraa 71.25 karoor filimka lagu magacaabo Jad oo sanadol hogaamiye uu kay marka aragtidiina ka dhiibta Jad iyo sidoo isku celinaa maalmaha shaqada iyo mashruucan hadda guuleystay shabakadaha isku raaceen hid dhameystiran sidoo ku noqon lahayn saaxiibayaal waxay ka xigto oo kaliya inuu 100 karoor gaaro marka Jad intaas aan kaga gudbaynaa waxaan markaan soo qaadanaa filimka Good Bad Ugly oo Ajit Kumar hogaamiye ka yahay markii la guda galay Walking Dead talaadii hoos u dhac weyn uu sameeyay laakiin waxa la filimkan hore u shaqaystay wuxuuna ku sii jeedaa sidoo 200 karoor ku gaari lahaa kadibna uu noqon lahaa hid dhameystiran filimkan sidoo kale My Film Movie Makers askale hal company ayaa labadan film waaweyn Jad iyo Good Bad Ugly isla leh oo shaleemooyinka wada saartay haddana Good Bad Ugly ganacsiga shabakada T2B aan ka soo xigin karno wuxuu maraa saaxiibayaal 183 karoor iyo bar sida ay shaaca ka qaaday shabakada caanka T2B World War Gross laga hadlaa dibad iyo dal qoliyaha cajaradaha qaybin saamiyaha waxa ku soo aaday 89 karoor bar tan waxay ka dhigan tahay marka filimka saaxiibayaal marka hore waxa lagu iibsaday 116 karoor waxa u dhiman 26 karoor bar kaga dhiman filimka lagu magacaabo Good Bad Ugly sidoo ku noqon lahaa hid dhameystiran marka toddobaadka labaadna uu sii gadmi doonaa lacagtan hubantaan Ajit Kumar uu soo celin doonaa Tamil Nadu haatan wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaad 108 karoor Talu wuxuu ka keenay 4.80 karoor Karnataka wuxuu ka keenay 11 karoor Kerala wuxuu ka soo xareeyay 3 karoor Hindi inteeda kale wuxuu ka keenay 1.9 karoor suuqada caalamkan wuxuu ka soo xareeyay saaxiibayaal filimka Good Bad Ugly 55 karoor ay ka soo xareeyay marka sidaas wuxuu ku marayaa 183 karoor bar ganacsigiisa guud World War Gross
markaan waxaan soo qaadanayna kiiskii Seif Cali Qaan wuxuu yeeshay waji kale sababtoo ah Seif waa ka warqabnaa bishii Janaayo bilowgii sanadkan gurigiisa lagu tooray odaga nina intuu usoo dhacay oo raba cunigiisa inuu ka afduubto la dagaalamay kadib dagaalka ninkii uu la gal dhaawacay tooray dhabarkii meelahaas u geystay ninkiina waa ka warqabnaa ugu dambeyntii waa la soo qabtaa la Shariiful Islaam nin la dhaho Bangladesh ka soo jeedo iska maskiin oo bamba isagana la soo qabto xal asaaka dambe xabsi la galiyay baaritaan markii la sameeyay 20 fingerprint ee gurigiina baartamaantii Seif Cali Qaan uu deganaa markii baaritaan lagu sameeyay waxaa la soo helay 20 fingerprint oo gacmo kala duwan fara agabyo lagu qabtay 20 kaas fingerprint markii la baaray Shariiful Islaam ninka la dhahayo hal xab uu ka yeesho oo kaliya inta kale dad kala duwan noqdeen marka waxa la kiiska hada tuhuna soo galay waxa la ninka maskiinka mal naboya ama uu iska ahaa tuu iska caadi guriga soo galo baaqulyaal waxa iska rabay inuu qaato iyo alaab oo dhacdadan intuu la kulmo iska carray kadib waxa la hada kiiskan qoorta loo galsho waa macquul sidoo kale tan waxa la waa macquul inuu asiga dhibaatada geystan waa macquul waxa logic oo dhici kara laakiin qolooyinka booliska still waxay ku dhigan yihiin Shariiful Islaam waxay leeyihiin faraha aan qaadnay oo report ka soo baxeen fingerprintiga farayaasha kale helay waa dad guriga imaan jireen ku dhahan apartmentiga lagu yaqaan imaan jireen ama dadka dariska ahaadaan ama dadka guriga degan ayay noqdeen faraha kale helay laakiin fara oo guriga ku cusub oo stranger ah faraha waxa ka noqdeen Shariiful Islaam ee soo laga yaabo miskiinka halkaas habeen intuu wax iska qaraabana guriga soo gal la qabto ma laga yaabo wax logic ah waa ani kiiskaas aad uga shakisanahay waxaan ka cabsanayaabo Seif Cali Qaan waxba meesha ku jiro waxa ku jiro waa soo bixi doona ogaada sababtoo ah dad xaafadda degan inay yihiin oo Seif Cali Qaan yaqaaniin waa laga yaabaa familka dhexdiisa Kariina Kapoor ma odaga Torres xataa lama ogo waa iska kaftama laakiin waxba dhici karo there is something logic sababtoo halkaan nin kaliya lagu dhigay waxa la adaa stranger ka ee faraha kale fara la yaqaan noqdeen ma la dhaho ma la sheegay 19 qofood ma la dhaho waa Ibrahim Cali Qaan Kariina Kapoor iyo ma la dhaho iyo Saara Cali Qaan iyo dariskii waa la yaqaan war ma ahane booliska uu sheegay dadka 19 qofood kale faraha aan dhahdin waa la yaqaan ma sheegtiin ninkan Bangladesh ko Hindi iska imaado bamba iska qaraabanay raba inay baxar kiiska qoorta u galshaa marka ana waa shakisanahay wax oo hadda oo questionable mar walba kiiska su'aal la gelin karo dood la gelin karane waxaan isleeyahay wax oo conclusion dhameystir laga soo saari karo ma maxkamad lagu geen karo marka ninkaas waa la iska haystaa miskiinka ah kulli uu maro gurigaas tagay way jirtaa CC cameradan waa qabatay laakiin ilaa hadda waxa aqli gali la haddaan kiiska dib ugu laabano xasuustin waxyaabo badan waxa jirto anaga xataa ka wada shakino ahayd ninkii Seif Cali Qaan la dagaalamay Seif iyo wiilkiisii waxa isugu tageen la dhahay odag kale dad badan isugu tageen ninkii inta la qabtay garbaduub loo xiray aqoon lagu xiray qol markii lagu xiray kadib booliiska la wacay Seif waxa loo raadiyay dabcan ambulance gurmud waa loo waayay Seif hoos u degtaa la cunigiisa wade bajaaja lagu qaaday isbitaal lagu geeyay ninkii meesha ku xirnaane wuxuu ka baxay la kor intuu iska furay marwaxada kor intuu iska furay meesha dulalka mukayfkii meelaha saqaf intuu iska furay uu ka baxay how come dabaq oo markii uu yartay 17 biyaan meelahaas 8 biyaan xataa iska dhe ma intuu meesha iska baxay intuu ka sii aadaa marka intuu ka bixi karaa kiis incident dhaco la isku soo wada baxo booliis la wacay nin dulalkaas ka baxay intuu gali karaa oo ka bixi karaa wax oo marmarka qaar aqli galinay noo sheegayaan haddana waxa ka sii daran haddana 20 farooda soo bixina hal far kaliya lagu dhigay Shariiful Islaam faraha kale waa la yaqaan guriga imaan jireen la dhaho meeshan waxa wax iska socda waa fahmi la ilaa hadda laakiin idinka idinku daayay bal aragtidiina ka dhiibta markaan waxaan soo qaadanaynaa waxa la Sandeep Reddy Vanga waa caajisay sababtoo ee Bravas uu sugooya Bravas waxa waa daraja saab iyo wuxuu ka dhamaan la ay Fawuji October uu qabsaday awal waxay Janaayo shaqada in la bilaabo Sandeep Reddy Vanga waxa ninkan shaqooyinkan qoorta kula jiro sadameen wuxuu dhaniyo wax ma ku sheega 6 bilan ku sii June firaaqa soo noqon hadda ilaa hadda daraja saab lama dhameystin iska baday Fawuji sadartay Sandeep Reddy Vanga iyo Bravas waxay ku heshiiyeen in filmkan October la bilaabo oo xitaa 100% confirm ma film Spirit meesha waxa soo baxay marka maanta xana soo dhacdo aan danta u socdo حتى gossip ka soo dhacday idin sheego in Sandeep Reddy Vanga uu la xiriiray Ramjaran film ka bidii dhameystir rabo Sukumar 17 Sukumar intuu soo bilaa filmkiisa 17 waxa leey hadda wuxuu kulan la qaatay Sandeep Reddy Vanga sheekan Spirit ahaanu haya sheeko kale fresh ah raganimo iyo karti ku dhahan ugu magaara directorkaas ayuu Ramjaran la wadaagay wuxuu dhahay diyaar ma tahay Sukumarna waa taqaan waqti u baahan yahay Ramjaran 17 qoris waxa la guda galo marka wuxuu keenaa la sheeko karkarsan oo diyaarsan waa Sandeep Reddy Vanga qaanada kaga buuxan alaab kale wuxuu soo wada raganimo ka buuxdo iyo qamarjinimo rabsho la daadinay Ramjaran waxa la yiraahdaa diyaar ma tahay bidii goorma dhameene adi May imaas waa dhameena June soo shaqo galaa ilaa June ilaa iyo December ba kana garaaca taagan Sandeep Reddy Vanga markaan sanadka inta ka dhiman Ramjaran u dhameey Bravas ani adi 2027 no madal sababtoo Sandeep Reddy Vanga waxa waaye خد بربرتوا هودا سرومرا مالك سكوم السجن كر أنا مالو سمي عرك سرومرا سبيرد عسلا هرس سنة كان كبلاو برفاسا مشغول سن وح أنجرنا برفاش كم مشغول سن سبب تو راجع ساب هنومان لسكود دري هنو أنا لسكود دري فوجي لسكود دري جناح سود هل سبيرد حتى ولي قد مجانا سبيرد كيف عنو بالله مركا هذا رام جن وحلا فرصة قالي ويستاهل هذا هدو بدي إسكندر ما سكومار نقوله صحيح ويكاد له دق
waxa way noqonaysaa asiga iyo Sandeep Redivanga film sameyn doona meeshaas wax weyn ka soo bixi doona marka bal aragtidiina ka dhib saaxiibayaal waa qodob jiro aan soo qaadanay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan fariin guud gaarsiiyo saaxiibo badan oo la fii hore ah wax badan soo wada joognay YouTube channelka ma aha waxaan ka hadlaa dad 25 sano ka hor ugu dambeysaan rabaa inaan isku baadi goobo aqyaar badan ay soo codsadeen waa asxaabtii akaashka ama aan ka shaqeysan jirnay filimada waa 2000 meelahaas aan ka hadlaynaa ilaa 2004 99 ilaa 2003 meelahaas asxaabaan isku xidhnaan waxaa jirto Vira Maxamed inuu la tagi jiray Bakaala la soo imaan maalin taajir meesha xalwada dadkii waa kala maqan waxaa la dhahnay adaa odagii hadda social media ku jirto team Zaki Media lagu xiran yahay dadkii isku baadi goob waxaan hayn in la dhaho Umar Abu oo kale dadkii la fii hore waxaan kaloo hayaa ii sheeg dadku waa badan waxaan kaloo hayaa dabcan la soo xiriireen Ahmed Anjara hayaa sidoo kale saaxiibkii Xasana laba Xasanan hayaa dadku waa badan yihiin waliba Xasan Saciid Xasan Balwaan oo kale kamid odayaashu waxay tahay dad qurbaha jooga war dadkii aan isku raadino saadartay marka rag badan oo akaasha waxa jira ugu xiran oo asxaabtaas ay kala maqan yihiin sida Tow Xuseen oo kale la fii hore waa ninkaas odaga wala aan ninkaas waa ninkii film fair oo website ka hadal iska daalacanayo oo noo keena user-na ku daawano warbixin ka akhrisana waa saaxiibkan Tow Xuseen oo kale haduu meel u joogo na daawanayo niyo waa lagu baahnaay nagu soo bir qofkii marka la fii hore kamid oo rab inuu nagu soo biro fadlan muuqaalka marka daawanayso YouTube channelka waxaan biin ku xiray comment ugu horeeya Facebook page-kayga ku xiray Facebook page-kaas iga soo salaan iga soo xiriir meeshan ka sheekaysanayna kadibna WhatsApp group oo asxaabtaas aan leenahay ugu xiriirin doona wax dadka in isku haya la rabaa iska warqaba dibad iyo dal dadkii la fii hore aan ka hadla oo soo wada baashaali jira marka asxaab badan naga maqan dadka naga maqan Haaron oo kala kamid oo asagana Jarmal ku ogaamiya wax allaale wixii teamkii nagu xirnaa oo dibad iyo dal joogaba ciise ganay oo kala naga maqan waa dad badan aan maqan marka dadkii waxa la isku raadi marka maalin walba insha Allah waxaan isku diyaa kilibka qaybaha ugu dambeeyaan asxaabtii cod dheer ugu sheego dhawriyaha naga maqan dadkii in isku xiraal rabaa la iska warhaayo la isku wareesto kaliya waxa waaye 25 sano ka dad dhalinyaro soo baashaalay hadda waa la kala odiyo family reer la yeeshay laakiin dadkii in isku hayo la iska warqabaa la rabaa marka asxaab badan naga maqane waragii oo aan wada baashaali jirnay Bakaare iyo Fii Rome iyo kulli iyo ciyaara aflaanta isla falanqeyn jirnay iyo naga maqan la fii hore maqan yihiin bal hay la soo xiriiraan Facebook qofkii Facebook leh Facebook page-kaas oo linkiga aan ku soo xiray comment ugu horeey fadlan linkigaas ku dhufo Facebook-gaas igala soo hadal ana asxaabta kugu xiriirin doon insha Allah si aan isku wareysano iskaga warhayno marka aqyaari aad idin salaamaya xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.